بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين daawadayaashayda aad baan idin salaamaya dhammaantiin waa anigoo ah Dr. Cabdicasiis Khadar Aadan waxay noo soo socday baan filayaa lecture-needanii ahaa ka hadlayay infertility-ga ama dhalmo la'aanta waxaanu lecture-kii hore kaga soo hadalnay waxyaabaha keena dhalmo la'aanta gaar ahaan ragga aynu ka soo hadalnay aynu aad u soo falanqeynay waxaanu maanta ka hadlaynaa waxa weeye waxyaabaha keena dhalmo la'aanta dumarka markaynu ka hadlayno waxyaabaha keena dhalmo la'aanta dumarka waxa jira waxyaabaha qaarkood waxaynu odhan karnaa waa waxyaabo qofku uu iska ilaalin karo ama uu la tacaali karo oo u baahan in lifestyle-ka ama siduu u nool yahay qofku uu wax ka bedeli karo haddii uu sameeyana wax badan tari kara baan filayaa haddaba waxaan idin sheegayaa in idiin soo horreysiinaya labada shay ee saameynta ku leh dhalmada dumarka ee mar kasta dhibaato ku keeni kara ayna samayn karaan inay la tacaali karaan amaba ay wax ka bedeli karaan dhalashooda shayga koowaad waxa weeye stresska ama qodobka koowaad waxa weeye maxay stresska cadhada yacni ama family problemska dhibaatooyinka familiyada issue-yada la xidhiidha stressku waa mid ka mid a waxyaabaha keena inuu hormonisku ama dheecaamada jidhka dhex maraya ee gabadhu waxay soo deysaa laba dheecaan oo yacni ka qayb qaata tarankeeda oo la yidhaahdo estrogen iyo progesterone labadan dheecaan ee gabadhu ay leedahay labaduba waxay iyaguna muhiim u yihiin yacni dhalmadeeda soo haddii labada dheecaan wax iska bedelaan oo ay amrayaan dheecaamo kale oo ka imanaya maskaxda ama hypothalamuska dan pituitary-ga deedna amraya xagee maxaa dhahdaay overiyadii oo dee overiyadiina hormoonada kale ay soo deynayaan marka waxa dhacda haddii gabadha cadhadeedu ay farabadato ama stress fara badan uu ku dhaco waxa dhacda inay hormoonadaasi khalkhalaan deedna waxa dhacaysa gabadhii oo caadiya oo jidhkeeda caadi yahay caafimaad qabta dhali karta inay waxba dhali weydo iyadoo ugu wacan tahay hormoonada ama dheecaanada isbedelay talabaad markaa wuxuu keenayaa oo kale dhiiggii caadada ahaa ee caadiga u iman jiray inuu isaga laftarkiisu khalkhal u yimaado oo iyada laftarkeeda ay ugu wacan tahay dheecaamadan isbedelay qodobka labaadee aan ku daraya waxa weeye qodobka labaadee dumarka keeni kara dhalmo la'aanta ee ay ka hortegi karaan waxaa ka mid a miisaanka faraha badan leh ama haddii BMI-ga gabadhu miisaanka jidhkii uu aada u kordho iyaduna waxay keentaa waa qodob kale oo keeni kara maxay dhalmo la'aanta ka qayb qaadanaya soo labada qodob waa labada qodob ee gabadhu ay wax ka bedeli karto una baahan tahay lifestyle-ka ama sida u nooshahay inay wax ka bedesho haddii aan usoo galo caadiyan dhalmo la'aanta caafimaad ahaan marka laga hadlaayo ama sida caafimaadka dadka dhigta ay u yaqaanaan dhalmo la'aantu si aynu kusoo sheegnay waxa weeye maxay iyadoo hal sano gabadhii iyo ninka ay wada joogaan si joogtaana ay isugu tegayaan oo ubad ay iman waayaan sanad ka bacdi waxay ku xidhan tahay da-da gabadha waxay ku xidhan tahay waxyaabo fara badan oo kale haddaba waxaynu ka hadli doonaa sida qolada caafimaadku ay u taqaano waxay idhaahdaan waxaa loo kala qaybiyaa dhalmo la'aanta dumarka laba qaybood iyadoo loo eegayo waxay ka imanayso ama sababta ay u imanayso yacni waxaa la yidhaahdaa gabadha dumarka qaarkood waa dumar hore dhiigoodii u helayay oo dhiiggii caadada helayay laakiin dhalmadii un waayey oo dhiiggii caadada uu joogaa yacni overiyadooda ama ugxansidayaashoodiina ugxantii way soo saarayaan laakiin dhalmadii baan jirin soo xal baynu kuwa sheegi doonaa waxaa la yidhaahdaa ovulatory infertility haddii ay tahay gabadh aan ugxanta soo saarahayn totally oo aan hore dhiig hore u helin iyadana waxaynu odhanaynaa anovulatory infertility soo haddaba labadan markaynu u kala qaybino waxaynu isweydiinaynaa haddaba haddii ay gabadhu tahay gabadh hore dhiiggeedii caadada u helaysay oo ovulation samaynaysay waxaynu odhanaynaa waxaa laga fikirayaa badanaa haddii ugxantii ay soo saarayso gabadhu oo eggii ay dibadda u soo saarayso laga soo saarayo overiyada fallopian tube-kii ama tuumbadii ay imanayaan waxa questionka ama sida dee maskaxda caadiga u fikiraysa ay noqonaysa waxa weeye in ugxantii
waxay timi fallopian tube-ka laakiin waxbaa hortaagan inay spermkii iyo eggii ay isu soo gaadhaan. badanaa waxay u badan tahay amaba haddii ay soo gaari waayaan, haddii ay soo gaadhaan laftarkeeda waxay dhibaatadu tahay iyaduna dhalmala-aanta keeni karta ilmihii yaraa ama eggii iyo spermkii fertilize garoobay ee isu tegay inay gidaarka qabsadaanba waxu diidan yihiin oo u kasoo dhacaya ilmihii. so waxaynu isweydiinaynaa waxyaaba fara badan baa jira. badanaa waxay u fara badan tahay waxyaabahaasi inay anatomically gabadha wax ka qaldan yihiin, ama ha noqoto makaankeeda, ama ha noqoto tuumbooyinka, ama ha noqoto serviceskii haynayay ilmaha yar inaanu soo dhicin. intaasunba wax ka qaldan yihiin. so kuwaa waxaa la yidhaahdaa oo waxyaabaha keeni kara ovulatory ama ovulatory infertilityga. so waxa weeye haddii ovulatory aada maqasho waa maxay? waa gabadhii ugxantii soo saaraysa, laakiin dhibaatada maxay tahay? waa inaanay ugxantii iyo spermkii eggii iyo spermkii aanay isu soo gaadhahayn, amaba dee meeshay qabsan lahaayeen ama meelihii ay ku fertilize garoobi lahayn dhibaato ka jirto. marka haddii tubeka wax ka qaldan yihiin, haddii makaanka ay wax ka qaldan yihiin, iyo haddii servicska wax ka qaldan yihiin, maxaa keeni kara? waxyaabaha keeni kara aada buu fara badan yihiin. fiixaha oo kale ka mid a badanaa dumarkeenu way yeeshaan fiixaha, waa kuwa ugu badan ee yani makaanka dhexdiisa ka dhex samaysma. weliba fiixaha keena waa kuwa muuqa dhexdiisa ku jira ama intermural la yidhaahdo, ama kuwa yani dusha sare submucosaha badanaa ku yaala ayaa la yidhaahdaa, ayaa badanaa keena dhicisida faraha badan ama ilmihiinu gidaarka qabsan waaye. waxyaabaha kale keeni kara waxaa ka mid ah haddii tubeska dhibaato ay jirto. tusaale ahaan haddii infection BID ama pelvic inflammatory disease oo kale hore oo u yeelatay gabadho oo infection gaadhaya makaanka iyo tuumbooyinka gaadhaya, deedna waxay keenaysaa haddii tuumbada labada dhinac ka caabuq kaga dhaco tuumbada inay maxay dhacdo inaan labadii dhinac ee tuumbadu ay isqabsadaan. deedna waxa la yidhaahdo adhesion oo ah isku bogsad, ama meeshii nabarkii inuu isku bogsado ay timaado. deedna eggii halkii ahaa in wadadan soo maro, wadadii already way xidhan tahay, waayo labadii gidaarba maxay way isku bogsadeen. kuwaasina waxyaabaha kale keeni kara. waxaa keeni kara kansar xilliyada qaarkood, haddii gabadhu qaliino hore gashay, haddii jugi soo gaadhay, waxyaabahaasoo dhan waxyaabaa keeni kara. sidee haddaba loo analyse karaa inay haddii ovulatory tahay? sidii caadiga ahayd gabadhii waxaad arki doontaa iyadoo yacni dhiiggii yeelanaysa, amaba xaaladii aynu soo sheegnay lagu garan jiray uurka, biyihii ay isbedelayaan oo kale, cervical mucuskii ay jilcayaan oo kale, temperaturekii uu kor u kacayo jidhka oo iyadana lagu garanayay. yacni waxyaabahaasi waxyaabaha keenaya hadhowtoole inaad ku garato maxay inay gabadhaasi ugxanta soo saarto. haddii progesterone oo kale laga qaado maalinta 21aad iyadana waad ku garan kartaa, shaybaadhada lagu garan karay ka mid tahay. so waxyaabahaasna waxyaabahayna caawinaya iyaga laftarkoodu. marka haddaynu aragno gabadhii inay ovulate garaynaysa, sidaynu u dabagelaynaa? waxaa la sameeyaa waxay ku xidhan tahay shaybaadhada, ama waxaa jira waxyaabo loo diro oo ultrasound computer la saarayo abdomankeeda oo caloosheeda oo lagu eegayo maxay makaanka inay fiixa jiraan, inay meelaha qaarkood is haystaan, waxaasoo dhan. xilliga qaarkoodna waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaha hysterosalpingogram oo ah in fluid lagu shubo dye leh, contrast la yidhaahdo, deedna lagu sawiro, deedna la arka hadday meelo xidhan yihiin, hadday fiixa jiraan, waxaasoo dhan dhibaatooyinkaasoo dhan noo sheegay. haddaba dawadiisu waxay ku xidhnaanaysaa hadba wixii keenay in la daweeyo. hadday structure tahay oo adhesions ay jiraan meesha isku bogsatay, de waxay u baahan tahay in la furo. hadday fiixa ku yaalaan, de waxay u baahan tahay qalin la sameeyo laga soo saaro. hadday juga jiraan kolba wixii jira xalli, iyo hadduu kansar jiro in la daweeyo, wixii oo dhan.